maanta ay taariikhdu tahay 7 bishii sanaad 2020 waxaan kormeer ku nimid aniga iyo General Sadiq saldhigii horeeto ee degmada Daynile oo ay kadibna loo bixiyay magaca Cusboole loo baxshay oo ayaantan la sheegayay in ay tahay meel awood gaara ay iska maamulato oo dadka si sharci darro loogu xiro arintaas ujeedada aan ka lahayn imaanshaha meeshan waxa weeye in ummadda Soomaaliyeed u cadeeno in gudoomiyaha degmada iyo maamulka degmadu aysan ahayn meel ay dadka iskaga xirtaan meeshan ay tahay saldhigii horeeto ee degmada Daynile oo la rabo qof kasta inuu ogaado inay tahay meeshu saldhig aysan ahayn xabsi bareebad ah oo dawladda kacaanka wax ku xiran jirto oo si gaar ah loo maamusho hadeerna inuusan jirinin marka waxaan rabaa wixii ka dhacay oo degmada maamulkeeda lagu soo eedeeyay waa wax baaritaan ku jira oo baaritaankeeda uu socdo natiijadana baaritaankaasi ka soo baxaysa waxaan rabaa inaan halkan uga jeediyo ummadda Soomaaliyeed in meeshan ay tahay saldhigii hore ee degmada Daynile maamulkeeda iyo saldhignimadeeduna aysan markii hore aysan shaqeyn jirin laakiin maanta laga bilaabo booliiska Soomaaliyeed lagu wareejiyay oo ay ka howlgali doonaan waa meel u baahan dayactir iyo ka shaqeyn fiican marka mas'uuliyadaas taliska booliiska iyo ciidamada booliiska Soomaaliyeed baa qaatay ayaga maanta laga bilaabo howlgalin doona haduu Ilaahay yiraahdo dayactirkii waxay u baahan tahayna waa loo diyaariyay marka maanta laga bilaabana wuxuu noqonayaa saldhigyada kamida oo degmadu ay leedahay ciidanka booliiska Soomaaliyeedna lagu ogyahay qofkii lagu xiray iyo sababta loo xirayna hadda kadib waxa la weydiinayaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed maamulka degmadana waxa laga weydiin doona haduu Ilaahay yiraahdo maadaama mas'uuliyadda booliiska ay ku wareegtay waxaan rabaa marka inuu qof kasta uu ogaado in warbixinada la gelinayo social media la xiriirsan kicinta iyo si xun wax u sheegitaanka in mataqaana dadka ay ka baraarugsanaadaan wariyaashuna ay ku ixtiraamaan hay'adaha sharci fulinta ee ku shaqada leh arrimaha noocan oo kaleeta wixii khalada waa bini'aadam way khalad waa dhici karaa khalad haduu dhaco ciidanka booliiska Soomaaliyeed baa jooga oo baaris sameynaya xafiiska xiraalinta ku jira maxkamad baa la horgeynaya qof maxkamad ka sareeya oo sharciga ka sareeyana ma jiro marka waxaan rabaa in la ogaado in qof kasta waxa uu sameeyo lagu la xisaabtami doono ama wariyaha noqdo ama yuusan noqonin ama maamul degmaha noqdo ama yuusan noqonin qof kasta oo kamida qof sharciga ka weyn ma jiro waxaana hay'adaha u xil saaran sharci fulinta waajibkoodu way gudanayaan hadii ay timaado khalad xagga sharciga la xiriirsan waxaan ugu dambeyntii u jeedinayaa dhammaan madaxda degmooyinka in ay ku dadaalaan in ay sharciga fuliyaan sharcigan u hoggaansamaan iskana ilaaliyaan qof inay si sharci darro ah xorriyadda uga qaadaan hadhowna aan la soo ogeysiinin hay'adihii ku shaqo lahaa xariga iyo xorriyadda qaadka dadka waxaana farayaa booliiska in saldhigga la howlgaliyo in laga shaqeysiiyo wixii dayactir u baahan yahayna ay ka shaqeeyaan qaabkii loo dayactiri lahaa waxaana aad ugu mahad celinayaa cid kasta oo gacan weyn ka geysata dayactirka waxa la rabaa dayactirku qasab ma aha markasta inuu ka yimaado dhanka dawladda shacabka laftiisa degmada degan waxa la rabaa inuu isxilqaan sameeyo oo uu ka qayb qaato dayactirta xarumaha dawladda maadaama dawladnimada aan ka wada shaqeynayno dhamaanteed u wada baahan tahay
taageero qof kasta uu leeyahay dad badan oo maalqabeena laga yaabo degmada inay degan yihiin lacagna haysto oo ku tabaruci kara hagaajinta iyo dayactirka saldhigan marka waxaan ku wareejinay saldhigan saa idin sheegay booliiska maanta laga bilaabana wuxuu noqonayaa saldhig ay ka howlgalaan booliiska Soomaaliyeed wixii dambe oo lagu xiray xarigoodana waxa laga weydiin doonaa booliiska